Maanta waxaan baranaynaa sida sheegay software loogu shubo computerka ama application ama sida looga saaro labadaba waa arkaynaa. So software-ku wuxuu noqon karaa locally ama online kasoo dejin kartaa. Marka locally waxaan ka wadaa flash disk-gaaga ku jiri karaa ama computerkaaga ku save garaysan yahay. Waa arkaynaa marka qaabka internet-kana loogu soo dejisto. Ii sheeg haddeertaana waxaan fiirinaynaa sida loogu shubo software-kaasi oo ah midka internet-ka laga isticmaalo oo la dhaho Firefox. Marka waxaan galaynaa start button-kaad ku dhufanaysaa, computer galaysaa, computer markaa gashid flash disk-ga galaysaa, flash disk-ga markaa gashidna waxaad ku dhufanaysaa Firefox installer-kaas ayaan ku dhufanaynaa. Right click siinaysaa, then waxaa leedahay open ama double click siin kartaa adoon right click siinin. Marka uu noo furmaya, markuu furmo waxaa leedahay yes. Okay, wuxuu ku leeyahay do you want to allow marta inaad u ogolaatid the following program can to make changes isbedel inuu ku sameeyo to this computer computerkan. Marka yes aa leedahay, haddaad rabin no baa leedahay. Marka yes haddeertan okay, then haddeertaan wuxuu bilaabayaa now installing uu leeyahay. Marka waa sugaynaa intuu computerka kaga shubayo. Marka programkan waxaa loogu talagalay inaad internet-ka ka isticmaasho sida browsing-ka markaad sameynaysid, Google search-ka markaad sameynaysid, markaad Google-ka wax ka raadinaysid, ama markaad YouTube-ka inaad gasho baa loogu talagalay. Marka waa kana now installable. Laakiinse marka ugu horeyso waa inaad internet-ka computerkaaga uu ku xiran sida wifi-ga ama isha cable waa inaad isticmaashaa. Okay, marka computerkaaga waa inuu internet leeyahay. Iska hubi marka internet-ka. Marka internet-kana haddaad aqoonina insha Allah waa baran doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo sida isha internet-ka wuxuu yahay iyo sida computerka internet-ka loogu xiro. Waxaas oo dhan waa arki doonaa practical ahaan. Laakiin casharkeena haddeertaan wuxuu ku saabsan yahay sida application-ka loogu soo shubo computerka. Haddeertaan ka aragtid kan waa iska xiraaya daaqada. Wuxuu soo installation-ka uu dhameeyay. Marka waa aragtaan Firefox-ka waa ka marka Firefox baa la dhahaa. Marka desktop-ku saaraya icon ahaan buu saaraya. Marka right click siinaysaa open baa leedahay ama double click open baa leenahay. Marka suu shaqeeyo waa arkaynaa. Markuu furmo saan u furmaya. Marka meeshaan arkaysid task bar baa la dhahaa ama waxaan ka wadaa address bar. Marka address bar-ka ciwaanka ku qoraysaa. Okay, waxaa ku qoraysaa ciwaanka. Ciwaankaas oo ah google.com baa leedahay. google.com, then enter ku dhufanaysaa. Marka google-kii kuu soo saaraya. Marka google-ka markaa gashid ii sheeg search baa sameyn kartaa. Markaas waxaad ku qoraysaa ii sheeg search. Waxaan raadinaynaa marka gadaho baa raadinaynaa wuxuu yahay, then search baa leenahay marka search. Okay, enter ku dhufanaysaa. Hawayar qadka isla ah. Marka waa kana saas wax loogu qortaa saasaan wax loogu raadiyaa ama ii sheeg YouTube-ka ka geli kartaa. YouTube-ka waa aragtaa meeshaan hoose waxaa kuu soo baxayo drop down ama menu waa kuu soo baxayo ka dooranaysid YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo Wikipedia. Marka YouTube-ka daartidna haduusan kuu soo bixin meesha ku qoraysaa, hadduu kuu soo baxana waa ku dhufanaysaa, then YouTube-kana wuu kuu soo baxaya. Marka browser baa la dhahaa. waa Firefox. Kan kaliya maahan, waa badan yihiin. Marka waa arkaynaa noocyada ay kala yihiin
idinka la rabaa inaad kuwa kale aad ku shubtaan computerka magacyadoodan hoos aan kusoo qorayaa qaybta description-ka markaad videoga daawanaysid. marka saasaa loo isticmaalaa. haddaad rabtidna Facebook aad galaysaa. marka Facebookna waa ka geli kartaa. okay marka Firefox-kani sidee kusoo download gareynaynaa waa arkaynaa habka loo soo download gareeyo. marka haddeetaan waxaan sii gudagelaynaa sida computerka looga saaro. okay application-kan marka computerka ka saaraysid waxaad ku dhufanaysaa start button-kaad ku dhufanaysaa, then control panel aad ku dhufanaysaa. control panel meesha programs aad kasii tegaysaa. programs hoosteeda waxaa ku arkaysaa uninstall a program ama programska ku dhufanaysaa laftirkiisa. then waxaa ku dhufanaysaa program features waa ku dhufanaysaa. then waa kaa ii sheeg waxaa kusoo baxayo programyada inta program ku jirto. then waxaad leedahay Mozilla Firefox kaasa ku dhufanaysaa. meesha ugu koreysa waxaa aragtaa uninstall this program. okay sida loogu shubo waa arkina haddana sida looga saaro. then uninstall baa leedahay. uninstall markaa ku dhufatid wuu ka saaraya marka computerka. okay next yaa ku dhufanaysaa. next haddaan kusii dhifto wuu ka saaraya marka saa oo la soco. marka ma raba inaan ka saaro waxaan rabnaa sida loo soo download gareeyo programkan inaan aragno marka download-kan ku xijinina. okay then cancel aad leeyahay, close baa kusii dhufanaya. then haddeertaan waxaa sii gudagelaynaa sida ii sheeg loo soo download gareeyo application-ada noocan ah oo loogu talagalay in internetka laga isticmaalo. okay sida kasoo qaada haddeertaan kan waa Firefox. okay marka Chrome-ka sida loo soo download gareeyo rabnaa inaan aragno. Chrome-ka daartid waxaad leedahay Google-ka galaysaa. waxaad leedahay google.com aad galaysaa. google.com markuu Google-ka soo furmo waxaad ku qoraysaa Chrome ku dhufanaysaa. then Chrome download kaasa ku dhufanaysaa. then Chrome download markuu kusoo baxo meesha isha hoose download now aad kusii dhufanaysaa. download now. okay download now. then waxaa ku dhufanaysaa isha the browser built by Google. download baa kusii dhufanaysaa. then downloadka bilaabanayo xoogaa yar kadib. then waxaa marka downloadka ku dhufatid waxaa kusoo baxaya save file. okay computerkaaga ku save garanaysa save aa leedahay. marka download box-kana wuu soo baxay doo wuu dhameeyey. marka downloadka fileka waa iska fudud yahay. marka sidee marka halkaana waa ka geli kartaa calaamadan falaarta saaray display the compress of ongoing downloadska. marka control plus J aa lagu furaa. then kaasaad taabanaysaa. then calaamada folderka ayaa taabanaysaa. folderkaasoo taabanaysaa then meesha downloadka ku geenaya meesha ku shubo ku geenaya. ama waa iska xireynaa qaab kale loo gala jirto. kan waxaan sameynaa minimize baa sameynaa oo hoos soo dhiganaa. then waxaad galaysaa ii sheeg qaybtana start button-ka. then computer ku dhufanaysaa. then waxaad galaysaa bidixdaada haddaad fiirisid waxaad arkaysaa downloads.
downloads then downloadska waxaa kusii dhufanaysaa cron setup okay marka sida loogu shubana waa kana hadeertana arkayna asigana then double click aad siinaysaa ama right click open marka internet uu u baahan yahay markaan in uu kusoo download gareeyo marka laba nooc loo soo download gareeyaa nooc oo offline ah iyo nooc ii sheeg markaa soo download gareysid internetka uu rabo marka adiga markaa website-ka geshid adaa arkaayo qaabka offline-ka loogu soo download gareeyo then markii aad right click siisid open aad dhahid run aa kusii dhufanaysaa run then yes aa leedahay marka waa iska hubinaysaa inaad rabtid inaad ku shubtid ama inaad u ogashahay connecting to the internetka ku xiran make sure internetkaaga inuu ku hagaagsan yahay computerka so internet la-aan kuma soo degaayo marka downloadku markuu dhameeya ayaan arkaynaa marka saa ka aragtid downloadkii weli waa wadaa dhammayn rabaa marka downloadinga iyo installationka isku waqti waaye markuu download gareeyana wuu kusii shubayaa marka programkan waa ka bedelayaa midkii kale okay marka saa ula soco waa ka downloadka u dhameeyay marka waiting to install uu leeyahay marka installing buu sameynayaa okay wuu dhameeyey marka close baan leeyahay then waxaan furayaa google chromeka marka google chromeka asigana sida firefoxka loo isticmaalaa saa ula soco isku sida loo isticmaala laakiinse qofba dooquu leeyahay fahamsama dooqaaga hadduu yahay google chromeka google chrome ku shubo hadduu dooqaaga yahay firefoxka firefox ku shubo marka waa noocyo badan yihiin qaybta video descriptionka hoosaan idinku qorayaa marka saana loo galaa marka haddaa rabtidna softwareyada freega ah haddaa rabtid inaad soo download gareysatidna hadeertaana arkaynaa sida google chromeka galaynaa maximize aan leeyahay waa weyneysiinayaa then waxaan leeyahay google chrome marka meeshaana waxaan ku qoraynaa nsendown.com ama meesha title barkana ku qori kartaa haddaa rabtid nsendown marka down.com kani waxaad kasoo degsan kartaa softwareyada freega sida kasoo qaada firefoxka haddaa rabtid soo offline ahaan loogu shubayo internet iyo waxba aad u baahnin flash disk haddaa rabtid inaad ku shubtid meeshaas kasoo download gareysan kartaa ama google chromeka sidoo kale okay marka downloadka dhowr nooc u kala baxa marka qaybna online ahaan waayo qaybna waxaa weeye waa offline ahaan marka waxaan arkaynaa meeshaan markaan galno quick search waxaa ku qoraysaa google chrome ku qoraysaa okay google chromeka markaa ku dhufatid aad fiirisid waxaan arkaynaa qaybta offline-ka marka softwareyada ama applicationada markaad soo download gareysid laba nooc ay kala baxaan 32 bit iyo 64 bit ay u kala baxaan marka windowskaaga ku xiran tahay sida hadda kasoo qaad kan 32 bit ku qoran midna waa 64 bit okay marka qaybta aan ku leeyahay offline ahaan loo soo download gareyna waa download page-ka haddaa fiirisid alternate offline installer marka offline installer kaasaa ku dhufanaysaa right click aad siinaysaa open with a new tab ku dhufanaysaa okay ama haddaa rabtidna toos aad click u siin kartaa
marka website-kan waxaad kasoo download garaysan kartaa waxyaalaha free oo dhan. marka saasaa inoo balan ah. marka khayr idin rajeynaya practical-kana sii sameeya hadduu ilaahay yiraahdo.